عليكم ورحمة الله وبركاته. soo noqosho dambe iyo kulan dambe oo xiiso leh. Maanta insha Allah waxaan sii raacin doonaa haddaynu maalintii dhibata ka soo doonnay maalintii noogu dambeysay male reproductive system. Maantana insha Allah waxaan isku dayi doonaa inaanu bal wax ka tilmaano sidii kii hore waxaan filaya kulli inaad fahanteen. Insha Allah waxaan filaya cidda fahmin ku soo ceshan doonto wixii su'aalana halka comment-ka insha Allah comment-ga. Female reproductive system baa jira. Female reproductive system markaan leenahay kooban yahay loo yaqaano vaginaha qaybta dambe cervix-kii uterus-kii iyo kana meesha ilmuhu galaya ilaa inta la uterus-ka isoo kale fallopian tube ama uterine tube la dhahdaa kaas dheer mu noqonaya ovary-gana waa kan xiro xantiin waata haddana ka socono ovary baa lagu yiri ovaries-ku baa lagu female gonads male gonads maxay noo ahaa test bay noo the small almond weyn almond bus macaasi almond cruisums ayaa lagu yiri shaped glands locate wuxuu dhaca lagu in the abdominal cavity u dhaca attached wuxuu attach with the uterus-ka by ligament ku attach suspensory ligament fara badan baa jira oo mataqaanaa ku attachsan yahay mataqaanaa labadan isku jiraan ovarian ligament waa jira sagal ovary-ga haysta broad ligament fara badan baa jira mataqaanaa isku hay ovary iyo mataqaanaa ovary-ga haya ovary-ga ma position-kiisa ku haya soo kale labadooda isku xiriyay ligament isku xiriyay continuous small sacs occurred follicles 2000 ku weeyay lagu boqolaal kumanal ku kooban yahay mataqaanaa follicles each follicles contain an immature egg or sperm pixmenta lagu produce hormone estrogen ama progesterone ayaa lagu sii deebaa lagu kuwaasoo ilaaliya mataqaanaa maintenance-ga ay joogayso follicles-kaas iyo progesterone hore kor u qaadaysa responsible wuxuu ka masuuliyaha lagu estrogen iyo progesterone kari secondary sex characteristics bigistig inuu soo baxo gabdhihii naasi soo baxaan hip wider noqoto ay tafihii weynaadaan body hair timaha inay kasoo baxaan sidoo kale qaybahaas oo kala taqaanaa pubic hair oo kale axillary hair waxaa soo soo baxaan waxaa ka muhiim ah estrogen progesterone waa sidii testosterone oo kale way ovulation dayno galabal hadda ovulation waa maturation or release egg weyn from laga saaray lagu leeyahay an every 18 days baa soo saaray lagu evolution waxa lagu raado sperm mature version halka iyadoo spermtu maalin kasta la soo saaray xilli kasta la soo saaray bayada layse labiyo still ataga shaba hal maalin soo saaray lagu oo la follicle garanay follicles uu sidii lagu leeyahay la mature garanaya haddii egg baa lagu not filtration kareem filtration say wada lagu and the body shut way daadanaysaa lagu the line of the uterus waxaan oranaya menstruation occur waxaanu naqana caadada baa dhacaysa menstruation waa caadada ayaa dhacaysa uu gabadha ku dhacay sidii la takxasho day wax mataqaana fertilization ay heli weeyda way fallopian tube jira ama uterine tube kala dhaw way waa two of them waa labo right iyo left sarkayno waa 5 inch langiskiisa aad mas dheero waa 5 inch attached waxay tahay upper part of the uterus qayb sare uterus ku attachsan yahay lagu by ligament ku attachsan yahay fakashkiisa maxay tahay waa move wuxuu qaaday lagu ovan from wuxuu keenaa ovary-ga sida uterus ovary ku keenaa lagu meesha ku keenaa meesha ovary ka keenaa sponta ilaa uu keenay yaba lagu taqaanay yani isoo sheeg uterus keenaya lagu soo waday meelahaas kale ma taqaanay fallopian tube ampular region la inta loo kala qaybiyo afar qaybood loo kala qaybiyo loo kala qaybiyo ma taqaanay isoo sheeg fallopian tube-ka qaybtaas fimbria ma taqaanay la dhahdaa isthmus baa jirta ambula jirta adoo qaybahan waxa la dhahdaa mataqaanay qaybsama isthmus halkan isthmus ay tafliya ambula jirta ambulahaas oo relaxed region la dhahdaa meesha ka dhacaawayaan fertilization ka dhacay hagaas macnaha keenaya cilia jirta kale peristalsis ku samaysaa lagu moving peristalsis macnaha dhaqaajin ku samaysaa lagu moving the sperm waxaan ovum dhaqaajin sperm side fertilization inuu ku xadhaa egg iyo sperm meesha uu ka dhacay fertilization egg iyo sperm oo ah ampular region fallopian tube dhexdiisa uterus waa hollow way muscular weeyaan waa muscular pear shaped weeyaan sidii kale weeyaan open organ weeyaan three parts poster fundus body cervix poster fundus oo taba middle cobariga iyo cervix oo narrow bottom ama qaybta hoose oo ku yaalo mataqaanaa vagina ku yaalo vagina waa organ of menstruation meesha menstruation ka dhacan oo waxa jira
wax loo yaqaan layera uu leeyahay jira mataqaanaa insoo sheeg endometrium myometrium perimetrium la yidhahdo uu leeyahay mataqaanaa sharin sameeyo daata macnaha waqtiyada menstruation ku dhacay ali wuxuu ku noqdaa development of the growth of the fetuska kusoo kale ku kora oo waan ka korayo endometrium ku koray oo soo galayo mataqaanaa wax yar contraction muu sameeyo ku during period to aid wuxuu garaa expansion of fetus inuu soo baxo gaara markuu expansion ama ku isku tago macnaha waaye ama kala baxaba lagu leeyahay explosion muu sameeyo layerska endometrium baa jira layers within endometrium if a different relationship ku dhasan soo gurur way the thinning detrolial result in menstruation ka dhacay lagu endometrium meeshaas macnaha ka dhacay layerskaas iyo uterus ku dhacay lagu anatomy of the uterus layerskiisu wuxuu endometrium myometrium perimetrium soo harbo soo sheegnay inner layer middle layer iyo outer layer perimetrium vagina jira isaguna waa muscular tube dadkaas oo connect ku xiran cervix outer of the body wuxuu xidhiidh waa qayb kamid ah mataqaanaa isaguna waa qayb kamid ah mataqaanaa cervix kamid ah cervix saan hore soo sheegnay hadeertuna maxaan u kala qaybinay uteruska saddex qaybood fundus iyo buri cervix cervix buu kamid yahay waa cervix isla wada garano ana qaybta cervix noqonaysa way qaybta cervix kaas vagina la odhanayo guri qaybta cervix ka vagina noqonaysa guri way function wuxuu noqonayaa passage menstruation flow meesha ay kamid aad ka misaal guri ka soo taadanayso sperm to wuxuu aqbal receive penis receive wuxuu aqbal peniska azema tafarankaisa male kamid soo aqbal ku leeyahay female organ weyn copulation meesha copulation ka dhaco intercourse ka dhaco period kana during delivery in the infant meesha hooyadii ilmaha ka dhashan weeyaan mataqaanaa fashkiisu waskooda garanayna vagina way soo kale waxaa jira soqon loo yaqaano Bartholin's gland ama great vestibule baa la dhahdaa way kaasoo mataqaanaa homologous la pulporetrial gland ama corporis gland ragga waa two small glands weyn on either side of vagina open dhinaca obina mataqaanaa vagina ayuu open garaysan guri secrete mucus for lubrication muu sameeyo ku leeyahay during intercourse wuxuu sameeyo ku leeyahay mataqaanaa loo yaqaan secretion soo sidaya lubrication waliba jilcin u qaabayso during intercourse waqtiyada marka intercourse ku dhacayso ama marka mataqaanaa galmadu dhacayso iyo intercourse sidayo doctor intercourse ay la soo sidaya Bartholin's gland kama gland ka soo sidaya lagu soo meesha lubrication garayo markay u fudeeyay macnaha wax adag uu noqon vulva baa jira vulva intayna waxayna u kala action mooyaano for the external genitalia and for external female genitalia laga soo wariyo waa qaybta dibadda oo dhan la yiraahdo mataqaanaa waxa loo yaqaano vulva la yiraahdo okay way vulva waxa ku jira lagu mons bibis waa mons bibis ka weyn baa la yiraahdo waa mataqaanaa mons waxa jira waxa loo yaqaano laabiya iyo laba laabiyal baa jira iyo mons sax mons bibis marka leena waa qaybta timaha leh qaybtaas weynansa qaybta timaha noqonaysa mons bibis ay timaha ka soo baxay fat kala soo kala laabiya major jira major sidoo kale waa qaybtaas noqonaysa qaybahaas noqonaysa halka laabiya major isaguna minor uu jiro qaybta gudaha noqonaysa iyadu qaybta gudaha noqonaysa laabiya major iyo laabiya minor way waa outer fold tissue covering the bibiga harka ku fargarisan lagu leeyahay meesha timaha soo baxay ayuu mataqaanaa ku fargarisan waa inner fold of tissue waa qaybta gudaha soo kale dhaxa jirta waxa loo yaqaan perineum ma jirto perineum ana area da noqonaysa u dhaxaysa analtaya vagina waxa dhaxaysa noqonaysa vulva nimka intaas uu macnaheedu u dhikid garisay ugu taagan yahay lagu soo kale kan xayasarta kor muhiim isagana yar anastomotal soo kale waxa ka muuqda clitoris waxa ama Soomaalidu naqaan kintirka loo yaqaan noqonaysa clitoriskaas oo sida mataqaanaa oo homologous gland of penis oo soo aragnay iyo homologous ugu lamid waa erectile tissue kaasoo mataqaanaa erectus sameeyo mataqaanaa during intercourse sameeyo sidoo kale waxa ka sareeya halkaas urethra baa ka sareeya kaadu ka imisay halkan qaybta vagina halkan qaybta wata urethra qaybta vagina qoys hymen baa qaybta hymen qaybta furan macnaha halka danka soo baxno thank you for watching aad ma asad aysa fiican insha Allah la socotay xaflada labada 10 isku xiri doonto male iyo female kaba wixii software loo baahan insha Allah soo xiri doonaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.